dhammaan staafka baarlamaanka saxaafadda waan islaamaya waxaan aad uga xumahay wasiiradii oo halkan timid inay dhaaftay labadii goor ay sheegtayba gobollada Soomaaliyeed galmudug inay sheegto ay dhaaftay wasiiradda waxaan codsanayaa mudane gudoomiye wasiiradda inaad dib noogu soo celiso saanu weydiino su'aalaha fara badan oo u hayno waxaan waraystay meeyarka degmada Gaalkacyo galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo maamulada kale oo ka jira gobollada gaar ahaan Cadaado iyo Sumreer iyo Guraceel iyadoo aysan jirin wax dawo ah oo dadkaas la gaarsiiyey aysan jirin staafkii iyo shaqaalihii la geeyeyna waxay ka qabteen aysan jirin dadkii aad bay u dhimanayaan bishaan keliya waxaa dhintay 130 waxaa xanuunsan 132 qofood saaka waxaa dhimatay 3 qofood wiigaan keliya markii la isku daro waxaa Gaalkacyada keenay 11 qofood oo meyd ah oo ku dhintay deegaanada hoos yimaada Gaalkacyo waxaa hoos yimaada 52 degmo 52daas degmo dadkii wax la gaarsiiyey ma jirto guud ahaan hobyo haddii la yidhaahdo waxaa hoos yimaada dhowr tuulaha hoos yimaada dadkii aad bay ugu la'deen wax gargaara oo gaarina ma jirto marka wasiiradda intay noo timaado hebelaa la soo gaday iyo heblaaya la soo gaday anagina la yidhaahdo maaha wax faagta ah oo caddayn ah ayaanu haynaa ummaddii halkaas waa ku baaba'day dhammaan reer galmudug Soomaaliya oo dhan muqdisho xamar dhexdeeda werdhig la gaarsiin yihiin dadkii iyo hodol waxa gargaar oo la gaarsiiyo male dadku wacyigelin ma laha marka wasaaradda bay ku kooban tahay xafiiskeeda ma sheegi karo codsiyaal badan iyo waraysi badan iyo hadal badan aan u haynaa wasiiradda dhammaan gobollada Soomaaliyeed waa isku mid isku si ayaana dadka loo hayaa xamar hadday yaraatay gobolladii iyo u gudbeen diyaaradiya soo qaadi waaye saaki gabar ila joogtay gurigeega oo reer laascaanood ah 8 qofood oo hal faamili ah ayaa gurigeyga waa la keenaya oo haddana dib loo celiyo garowga la dhigay oo la soo qaadi waaye marka waxay tahay magaalo madaxyadii ayaa dhaawaca iyo dhibaatada iyo dhimashada ay taas u daadsan yihiin marka wasiiradda caafimaadka waxaa codsanayaa gudoomiye inaad dib loogu soo celisid boqolaal kulaan keenay haamana yaala waxba kama jiraan wax yaala ma jirto wax la keenayna ma jirto ummadda isku sibay u la'aanayaan marka mudane gudoomiye hadalkeyga waxaa ku soo koobayaa maadaama siyaasad iyo wareer kale aan ku jirno in aan u dhaqaaqno dhanka caafimaadka oo shacabka wacyigelin fara badan loo sameeyo haddaad soo martid magaalada gudaheeda dhammaan xildhibaanada way ka warqabaan wax afka xiran male wax wacyigelinaya male meel walbay daadsan yihiin wasaaradihii gudahoodii iska dhex fadhiyaan qofka walba hadda waa runteed wasiiradda raggaa iyo hofka taagan ee saxaafadeena sharafta leh kulligood waa isku dhaweyn qaar badan aan afka xirnayn ummadda waa in la wacyigeliya waa in ganaaxa la keenaa waa in aad iyo aad loo ogaadaa in waxaan tahay dasiis soo kordhay oo ummaddii laynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu